ninku markuu rabo naftiisa inuu horumariyo 3 meelood baa ugu muhiimsan waxyaabaha kale oo dhan 3dan bay hoos yimaadaan haddaad 3dan ka shaqaysid habeen iyo maalin buu taagnaatid way waxaad ogataa waqtigan cimrigan adduunkaad haysataa waa socdaa waa ku dhaafaya laakiin muxuu kugu dhaafaya way isweydiintu hadduuba kulli ku dhaafayo oo aad kuba qasban tahay soo muhiimku ma ahan inaad wax wanaagsan qabatid marka wax naftaada wax tar u leh wax naftaada aad meel ku gaartid wax naftaadu ay qanaaco ka hesho wax naftaadu ay farxad ku dareento wax naftaadu ay ku degto soo muhiim ahan haddaba 3dan meelood meesha ugu horeysay tahay ninka ragga ahi inuu xoogga saaro waa dhaqaalihiisa ninka ragga markuu dhaqaale ahaan dhisan yahay albaabo badan oo nolosha ka mid ah furayaashoodu haysta albaabadu isagay adoon u yihiin haddii laakiin dhaqaale ahaan uusan dhisnayn raadinta furayaasha darteed ayaad albaab kastoo nolosha ka midaba adoon u noqonaysaa si tan aynan u dhicin dhaqaale ahaan waana dhisan tahay waxaa laga yaabaa inaad gabar la socotid mustaqbal baad ka leedahay waa gabar qurux badan waad la dhacday waad jeceshahay laakiin waxaa laga yaabaa in nin kale kaa doorato haddii waxaad ogaataa jir ahaan aad dhisan tahay muuqaal ahaan dhisan tahay nin aad u qurux badan aad tahay waxaan ku hubaa maalinta ninkaa jeeb qurxun uu yimaado waayo ninkan kaa dambeeya sababtay u dooranayso jeebkiisu qurux badan maxay tahay waayo albaabada isaga adoon u ah macnaha meelo badan oo nolosha ka mid ah dhaqaalu haysta uu isdhisay kuma mashquulin meeshaad adigu hadda shukaansi iyo gabardaba orodkeeda aad ku mashquulsan tahay ninkani kuma mashquulsanayn mashquulkiisa ugu weyn wuxuu ku bixiyey naftiisa inuu horta meel ka soo bixiyo kadib markaa way iska sahlanaanaysaa helitaanka inaad gabaraad nolosha la wadaagtid heshid adaa markaa dooranaya waxaad ogaataa ciil ka weyn ma jiro nolosha ninka ragga marka uusan dhaqaale ahaan dhisnayn markuusan dhaqaale ahaan isku filnayn marka jeebkiisu uu jaban yahay waxaa laga yaabaa gabar 3 sano aad gelisay in oday 3 jeer adiga ku dhali kara uu aabaheed kaa siiyo oo markaa mashxaradeeda aad ka daawatay TikTok iyadoo wajigeeda dhan muruga ay saaran tahay oo keega lagu khasbayo afka loo gelinayo odayga gacanta qabso oo si romantic iska dhig dadku ay leeyihiin adigu 2 jeer baad dilantahay markaa daawanaysid waa kow qofkii aad jeclayd oo caawa la qasbayo oo murugo guri madow ku galaysaad u jeedaa waa marka labaad ee niyadaad ka dilantahay waxaad dareemaysaa xanuun waayo gabadhii aad jeclayd ee intaasoo waqtiga aad soo gelisay baad weydi haddaba booska maxaa ku istaajiyey booska waxa ku istaajiyey waadan dhaqaalaha odagaasu haysto ama odagu haddii aad isku filnaatid dhaqaale ahaan gabar markaad doonatid si xushmad leh oo sharaf leh aad u raadsatid sidii la yaqaanay dhaqankeennu ahaa waa lagu siinayaa laakiin markaad dhaqaale ahaan jaban tahay oo jeebkaagu uu faaruq yahay cidina kuma siinayso murugada marka adigu intaadanba gaarin maanta fadhiga ka kac midda labaad ee lafdhabarta waa qof kasta horumarkiisa waa maskaxdaada dhis maskaxdu markay dhisan tahay meelaha fikradaha waaweyn iyo qorshayaashu ay ka yimaadaan waa maskaxda markii maskaxdaadu ay fakarto fikrad qurxoon ay keento fikradaana ficil iyo go'aan uu ku raaco noloshaadu qurux bay noqonaysaa kuma oranaya ma daalaysid waa daalaysaa wax badan nolosha ka mid ah daal waad ku dareemaysaa ciil baad ku dareemaysaa wax badan oo caqabadaha ka hor imaanaya shaki taa kuma jiro laakiin noloshaada quruxdeedu meesha ay ka bilaabataa waa maskaxdan control maskaxdan waxa aad ku shubaysid u fiirso waxa aad dhageysanaysid waxa aad daawanaysid maskaxdaaday galayaan waxyaabaha inagu inta badan aynu daawanayno nolosheenna maskax ahaan waxba inaguma soo kordhiyan waxba nolosheenna kama bedelaan waynu iska daawanaa saacadihii qaaliga ahaayee aan qiimo la dul saaro oo gooyaba uusan jirin way ku dhammaadaan halkaasay ku baxaan maskaxdaadii ismay bedelin hadda tusaalan ku siinaya haddaad filin daawatid muxuu kugu soo kordhinaya waxba kuguma soo kordhinayo haddii aad the bottom line fiirisid filinkan aad daawanaysid inuu been yahay la jelay waad garanaysaa waayo waxaan jacaylkan nolosha in marka la fiiriyo reality-ga adduunka bannaanka jira iyo filinka aad daawanaysid isma keenayaan dad badan waa waxyaabaha nolosha ka qasa waayo markay filimada daawashadooda badsadaan hadhow markay reer dhistaan ama ay qof la socdaan waxay rabaan wixii filimada ay ku arki jireen inay real life ku arkaan kuma arkayaan waa dad badan jahawareerka maanta haysta marka naftaada maskaxdeedu marka ay kobocdo maskaxdeeda aad dhistid maskaxda dhismaheeda waxaa ka mid ah oo kale in waxyaabaha negative-ka aad ka saartid dad badan oo waxa jira saaxiibo kula mid baa midigta ka fadhiya midna bidixdu ka fadhiya hadal buu kugu soo tuuraya kan hortaada taagan baa qoslay kan gadaashaada taagan baa oranaya waan ogaa waxyaabaha dadka negative-ka ah noloshaada ka sifee noloshaada ka tirtir haddaad aragtid dadku inay negative yihiin ama maskaxdaada horumar ahaan markay noqoto saamayn inay kugu yeelanayaan kan nadiifi khaanadaha maskaxdaada waxyaabaha aan u qalmin haddiiba cid walwal ay kugu haynayso hal qof oo keliya noloshaada walwal ha kugu haya hadalkiisu waana adiga oo qura kuma dhaafto waa adiga bini aadamka kale hadalkoodu macno ma lahan taadu ha kula weynaato taadu ha noqoto waxa aad fiirisid taadu ha noqoto midda aad xushmaysid taadu qofku ixtiraamka naftiisa uu u hayo
ma baran karo ismana ixtiraami karo qofku intuu dadka kale negative ka dhageysanayo hadallada ay ku oranayaan iyo waxay ku soo tuurtuurayaan iyo ogow dad badan waxa jira xaasid ah dad aan horumarka kula rabin baa jira dad aan inaba inaa ka bucdid oo wax noqotid rabin baa jira adigu markaad aragtid qofku jallaafaynaya ama hadal xun kugu soo tuuraya ama isku dayay inuu caqabadan meesha jirinba uu ku abuuro ku baqdin geliyo waxaad garataa qofkaasu in uu yahay sun noloshaada ku jirta si ruuxdaadan iyo himadaadu aysan u dhiman lagama maarmaan bay noqonaysaa dadka qaar noloshaada inaad tiraahdo xoogaa yar bal ii banneeya waddada aan horey weera socdee ka waddada ka leexi dadka waxaan ka wadaa iska go la hadalkooda la sheekaysigooda la fadhigooda la cawayntooda jar macno kuuma lahan waayo waxa kaliya ay kugu yiraahdaan waa waxa aad nacaysid waa waxa dhibsanaysid waa waxa dib u dhac kugu keenaya hadalla badan oo aad ka naxdid maskaxdaadu ay kaydiso marar badan ay ka fakarto kugu soo dhaca mararka qaarkood ma saragtaa in nolosha wax aad ku guul daraysatid markaad guul daraysatid baad waxaad soo xusuusanaysaa hadal waa hore qof uu kugu yiri waa dhibaato sababta aad u kaydisana aadan garanayn sababta kugu soo noqonaya maxay tahay dad badan baa marka halkan waxay yiraahdaan qofkaas hadalku waagii ugu oranaya waa runtii maadaama maanta aan guul daraystay dadkaasay marka soo dhaweystaan mar walba hadaladay oranayaanba way dhageystaan markay wax ku guul daraystaan buu xilin waa oga hebel baa ii sheegay hadda ka hor inaan sameeyahay tartiib waxa soo bilaabanaysa marka dambe in aaminaadda dadkan aad ku qabtaa ay weynaato mar walbana aad saragtid inaad nolosha ku sii fashilmaysid marka dambe talooyinkooda inaad dhageysatid tartiib waxaad sarkaysaa adoo qofkani uu ku hogaaminayaba wuxuu kuu sheegad samaynaysaa wuxuu kugula taliyaad yeelaysaa haddana wax kastoo kugula taliya guul kumaba gaaraysid markaad guul daraysatid dadka qaarkood waxaad heli doontaa inayba ku faraxsiin inaad guul daraysatay goor dambe oo noloshaada waqti badan uu ku dhaafay oo aad silicday oo guul darro maahana wax kale noloshaba aadan ka qabin ayaad baraarugi doontaa waase goorma waa goor qofku uu gowska dambe ka qoslayo wixii noloshaada qarribmi lahaana ay qarribmeen markaasaa aaminaadda bini'aadamka aad ku qabtidoo dhan ay burburaysaa oo qof dambood aaminaysaa nolosha uusan jirin haddaba markay noqoto adiga noloshaada taadu ha kula weynaato taadu qiimaha kula lahaato bini'aadamka fikirkooda ood qiimaysid ood kaaga ka sarraysiisid ogow boos hoose oo daciifnimo ayaad istaajinaysaa naftaada ha istaajinin yaad ka sugaysaa inuu ku yidhahdo waad qiimo badan tahay yaad ka sugaysaa inuu ku dhaho waxa waad noqon kartaa yaad ka sugaysaa inuu ku yidhahdo waxa waad gaari kartaa yaad ka sugaysaa inuu waxa fiican ee wanaagsan ee qalbigaagu ku degayo naftaadu wax ku noqonayso inuu kuu sheego oo naftaada aan ka ahayn ma jiro midda saddexaad waxay tahay dad badan inay ka xanaaqi doonaan waan ogahay laakiin carada naftaada u celi markaasaad isbedelaysaa qof kale ood u carootay ama qof kale muxuu waxa u yiri aad ka xanaaqday isagana waxba kaga maqaadaysid waxbana kuma soo kordhinaysid naftaada mas'uuliyadda ka saaran aqbal meesha aad joogtid iyo qaladka ku sugan tahay sax qofku taasoo isbedel ku sameeya taasoo horumarku ku yimaada midani waxay tahay rag iyo dumarkaa doontidba ahaw ee jirkaaga dhis jir dhismeedkaagu waa qayb weyn oo quruxdaada iyo soo jiidashadaada ka mida dad badan markay isguursadaan oo dhowr sana isqabaan dhowr cunug gurigii ay joogto badi guryuhu meesha ku dumaan waa halkan wakhtigan markay taagan yihiin baa guryaha dumintaankooda uu bilowdaa inta badanna waxay ka soo bilaabataa in qofba qofka kale uu u dudo mindi ku taag hadalkaa la isku celcelin canaad naxariis male qof walbaaba qofka kale cara iyo ciil buu u qabaa yaa gardaran iyo yaan gardarnayn lama kala yaqaan laakiin mid isweydiiya maalintii aad isa soo guursanayseen iyo maanta muuqaalkiinnu waa kala duwan yahay haddii muuqaalkiinnu uu yahay kan da'dan kugu socotay wax la mida waa la gartay laakiin cuntadan aad cunaysid iyo isbeddelka jirkaaga ku yimid adigaa sabab u ah dadka laakiin mediocre lifestyle-ka ku nool ee qiilasha badan ee cudurdaarka badan meelahan oo kale 100 cudurdaar bay haystaan ninka weydii wuxuu ku oranayaa reer iyo caruur iyo shaqo iyo neo busy ma u haya time laakiin miyaadan talada ku darsan oo ku xisaabtamaynin shalay markaad reer dhisanaysa mas'uuliyaddan inay adiga ku saaran tahay naftaadana mas'uuliyadda ka saaran tahay haddaadan ku baraarugsanayn maanta hurdada ka kac marka gabadha la weydiiyo intaan cunug baan dhalay aabahood waqti nama siiyo caruurta la igama hayo waxa kama dambaysta ee aad samayn kartaa muxuu yahay gurigaaga dhexdiisa inaad ku samaysid exercise-kii inaad qalabkii soo gadatid gurigaaga dhexdiisa aad ku samaysid haddiiba dantu ay ka liftay oo wax kale iyo waqti kale ood haysaa aysan jirin daayatkaaga cuntada aad cunaysid gurigii labadiinnu markaad ka midowdaan hooyo aabbo wada shaqaynaya oo qofba qofka kale jirkiisa uu ka naxayo oo isla shaqaynaya markaad noqotaan isbeddelkan waa imaanaya kalgacalkii waa soo noqonaya qofba qofka kale xiisihii uu u qabay meesha waa imaan laakiin quruxdii aad horay u lahaydeen meesha way ka baxday labadiinnu marka mid baan rabaa inaan idhaahdo waxaad eedda dhan saaraysaan ilmaha yaryarka oo masaakiinta oo raaxadiinna ka dhashay
qof walba wuxuu leeyahay carruurta ninka marka la waraysta carruurta gabadha marka la weydiiyo carruurta qof walbaba carruurtu eegaya laakiin ogaada ilmaha masaakiinta waxba maysan dhimin ilmaha waxa aad saaraysaanna waa gardarro naftaada dayaca ay ku jirto naftaadu silac ay ku jirto naftaadu meesha ay taagan tahay adigaa dhigay inta qofku mas'uuliyadiisa uu ka cararayo noloshiisa isbeddel kasta oo uu ku riyoonayo iyo isbeddel kasta oo uu maskaxda ku hayaaba ma suurtageli karo qaladkaaga qiro naftaada u soo jeenso wax aadan qaban karin ama bedeli karin ma jiro go'aankaaga wax walbaana ku xiran yihiin